الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa farxad weyn bay tahay inaan ku soo noqdo dalkii annagoo nabad qabno waxa aan u babaxay dalka Ethiopia ee jaarka nahay waxaan la kulannay Prime Minister Ethiopia waxaan ka wada hadalnay danaha labada dal iyo bandaqada ayaan ka wada hadalnay si wanaagsanna waa isugu wada faranay waxyaabaha ku heshiinay waxa kamid ah inaanu ka wada shaqeyno infrastructure ama muxuu ahay horta marka hore saxadii nabadgelyada bandaqada aynu ku wada noolahay oo caadeyno ah waxaanu kala ka wada hadalnay sida uu isticmaalahay Ethiopia muxuu ahay dekada berbera isticmaalkeeda wadooyinka inoo dhaxeeya looga shaqeyn lahaa lightka waxa looga qaban lahaa muxuu ama electrica waxa looga wada shaqeysan lahaa nabadgelyada si wada jira bandaqada oo dhan aynu si wada jira wax uga wada qaban lahayn arrimaha horumarintooda oo labada dhinac ayaan ka wada hadalnay si wanaagsan uga isku afkaranay waa dal aynu jaarnahay waa dal walaalkeena oo weyn oo wax badan aynu wada qabsan karno weeye insha Allah ta'ala safkaradkaana waxaan raaci doonaa inaynu waxyaabaha aynu soo afkaranay aynu fulino taasoo wax u tar weyn labada dal iyo labada dhanba u noqon karta insha Allah ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantihiin هذا كيجوا مرة بيصير حاسس هذا الجيل له ويصعب مقعي هو السيد عبد الحسين وحسب الرئيس كمان لا تدين يعني والله جاي ما عنده كل ما قالت لنا هنا مرة بس يصير شرح أنت وقت ما كان لي مكان كذا أنت هذا كمان هلا وقت كل مية حزب قبل ده هاي حزب كل مية برح إنسان قبل هاي مدحوين القرن كانوا هاي وحي جهر شوقة إلى إسكاسو شرحه بتشرح تفضل مقعي وعبد الشيخ عبد الحميد أحمد السنة اللي جيت في المذيع الدنيا اللي بسأله سؤال وراك طلع المركز هذا كان وصلي بالفعل وحا وصل واقعي إن دي اللون اللي جاي شوين وكمية كبيرة لوعد الدين لا صورة دون أحسن حال كلام بالحوالي خلص الغلط سؤال لبس أنت وحي بالحوالي كل بركة قبلنا سعادة أنا حقواني قعدت إلى كتير الكوسكو ما أنا مبدو يدورته أنا بحوي قركه وأنا قلت لي الشركة قلت لي أتوك قلت لي لا تعال حافظت قبيل هر تاجري إذا كنت شفت أنا قلت لك أنا ودي يا كنت شفت خلاص أنت في السؤالين لو قلت لي ما أنت إن شاء